سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود كسو دواada فيديو cajiib badan oo ku saabsan taariikhda Facebook. ugu horeyn waxaad subscribe soo saartaa janaalkeena hodan weheliye kaasoo aad ka dheehan karto waxyaabaha aad u baahan tahay sida fiidiyoyaasha ku saabsan taariikhyada, tiknoolajiyada, reactionada, wax alaala wax rabtid. cashirkeena ayaan u gudagali doonaa. ugu horeyn Facebook markii laga hadlayo shirkadda Facebook waxaa aas-aasay ninka loo yaqaano Mark Zuckerberg, waxaana la aas-aasay sanad 4 Febraayo sanadkii 2004. shirkadda Facebook ayaa lagu tixraaci karaa in ay tahay shirkadaha isku xirtay bulshada qeybaheeda kala duwan. marka laga hadlayo ninkan aas-aasay shirkadda Facebook, Mark Zuckerberg, waxaa la aas-aastay asxaabtiisa markii uu dhiganayay jaamacadda ku taalo dalkaasi Mareykanka. ninkan wuxuu dhashay 14 May 1984, wuxuuna ugu horeyn sameeyay wax loo yaqaano face match kaasoo ay jaamacadda ka xirtay kadib markii uu lagu arkay waxyaabaha ka baxsan anshaxa. marka ninkan waxaa la sameeyay bahalkan loo yaqaano Facebook oo asxaabtiisa ka mid ahay nin la dhihi jiray Edward Sifin ama Edward McCollum, Dustin Mosford iyo Criswell Hayes, waxayna dhammaantooda la shaqeyn jireen ninkan loo yaqaano Mark. markii laga hadlayo Facebook waa aaladda ugu soo degsiga badan dhanka la yiraahdo Play Store-ka, waxaana soo degsatay 106 qof. aaladdan Facebook ayaa lagu tilmaamaa inay hadda tahay aaladda ugu isticmaalka badan caalamka, waxayna hadeerna iibsatay shirkadaha loo yaqaano Instagram-ka oo ay ka bixisay $1 milyan oo dollarka Mareykanka ah. waxay kaloo iibsatay waxa loo yaqaano WhatsApp-ka oo ay ka bixisay $9 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. marka aan usoo laabano taariikhda Facebook waxaa ku jiro waxyaabo kala duwan oo loo yaqaano Facebook admins. marka aan sharaxno waxyaabahaas waxay yihiin: Facebook naftirkiisa ayaa waxaad ka sameyn kartaa Facebook page wax loo yaqaano, kaasoo oo meeshaas kala socon kartid waxyaabaha aad rabtid, aadna soo dhigi kartid waxyaabaha aad u baahan tahay. Facebook haddana wuxuu leeyahay live oo loo yaqaano aad soo geli kartid oo soconayo xilliga adiga aad u baahan tahay. waxa uu kaloo leeyahay log, meel loo yaqaano waxaad ku xiri kartaa dhammaan waxyaabaha ku shaqeynayo Facebook gudihiisa. halahaas ayaan kusoo koobaynaa taariikhdii ku saabsaneyd Facebook. hadda kabacdi waxaan idinka codsanaynaa in aad kala socon doontiin bartaan hodan weheliye taariikhyada ku saabsan caalamka, dhacdooyinka, waxyaabaha taariikhdooda, waxyaabaha la isticmaalo taariikhdooda. marka akhyari waxaan idin leenahay noo saara mar kale subscribe janaalkeena hodan weheliye. halahaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.